soo dhawaada daawadayaal qodobada ugu waaweyn ee Fafi TV aad ku daawan doontaan maantana waxa ugu waaweyn dawladda Soomaaliya ayaa dul tagtay ciidankii ugu badnaayay kooxda Al-Shabaab lagu laayay sidoo kale waxaad warkeena aad ku daawan doontaan fiiryaanada caanka ah ee Ramla Cali oo si diiran loogu soo dhaweeyay madaxtooyada Soomaaliya sidoo kale waxaad warkeena aad ku daawan doontaan gudoomiyaha gobolka Banaadir Mungabo xalay wadooyin waaweyn ee Muqdisho lugta mariyay haddaba qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaadna ku daawan doontaan warkeena soo dhawaada daawadayaal halkan aad naga daawanaysaan waa Fafi TV haddii aad markuu ugu horeysay fadlan YouTube kan soo subscribe garay muuqaalkan la garay haddii sidoo kale aad dhanka page-ka Facebook aad naga daawanaysidna soo la garay si saaxiibo badan uu u gaaro maasanid hagaag aynu ku bilaawno madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si diiran ugu soo dhaweeyay madaxtooyada Villa Soomaaliya Ramla Cali oo waa markaasi Cali oo ah gabar fiiryaanada ah oo markaasi qaxootinimo ugu noolee dalka Ingiriiska iyadoo fiirar badan ay ka qayb gashay gabadhan daadiyar ayaana markaasi soo gaartay gudaha caasimadda ee Muqdisho toddobaadkii hore iyadoo markaasi ay si diiran loogu soo dhaweeyay inkastoo soo dhaweynteedu ay dad badan ay markaasi dhaliil ay ka keeneen dawladda Soomaaliya ayaa sidoo kale madaxweynaheeda Xasan Sheekh Maxamuud si diiran maanta ugu soo dhaweeyay qasriga xilli kulan ciyaareed shalay ka dhacay garoonka Engineer Riso Stadium iyadoo si wanaagsan loogu soo dhaweeyay dadka inta badan xaaladda gabadhan la socda ayaa waxa ay sheegeen in ay markaasi ku habbooneed maadaama gabadhu ay ahayd gabar feeryaan ah in qaybta feerka lagu soo dhaweeyo ama kulan feer ah gabdho kale oo markaasi ciyaaro loo balamiyo si ay markaasi daawasho badan ay u heleen maadaama iyadoo kubadda cagta aysan ciyaarin balse haddana maamuus iyo waliba sidoo kale soo dhaweynta ayaa gabadhan qayb ay ka ahayd iyadoona si diiran loogu soo dhaweeyay gudaha caasimadda Muqdisho iyadoona markaasi maanta la geeyay madaxtooyada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si diiran u soo dhaweeyay Ramla Cali oo ahayd gabar feeryahanada oo ay si weyn ugu soo dhalaashay feerka markaasi iyadoona gabdho badan ay dhagta dhiiga u dartay Ramla Cali ayaa lagu xasuustaa iyadoona markaasi horyaalka Ingiriiska feerka ee haweenka ayay ku guuleysatay iyadoona markaasi hablo markaasi wadamo badan oo caalami ah ka socday dhaqaale iyo wax walba loo garab taagnaa ayayna markaasi dhagta dhiiga u dartay tanina waxay markaasi qayb weyn ka qaadanaysay dagaalka iyo waliba sidoo kale dadaalkii dheeraadka ay muujisay iyadoona markaasi ugu dambeyn iyadoo markaa ay noqotay champion iyadoona gabar Soomaaliyeed ay tahay waa markii ugu horeysay gabar Afrikaan ah ama markaasi qaaradda madow xitaa feer markaasi ka qayb gasho oo abaalmarin noocan oo kale soo hooyaysa balse laakiin gabadhan soo dhaweynteeda ayaa markaasi dadka inta badan waxa ay ka keeneen dhaliil weyn iyagoona ay tilmaameen in gabadhan habkii ay habooneed aan markaasi loogu soo dhaweyn madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii uu ku qaabilay qasriga madaxtooyada waxa uu gabadhan Ramla Cali uu ku abaalmariyay shahaado sharaf taas oo uu ku guddoonsiinayay maaragtay dhiirigelin uga dhigayay ku guuleysigeeda balse gabadhan ayaa shalay markii markaasi inta aan la aadin garoonka garoonka Engineer Riso Stadium ayay gabadhan waxa loo geeyay waa markaasi madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Mudane Cali Shiine balse erey ay dhahday ayaa maanta si weyn baraha bulshada u haysta kaas oo ah barooniga waad ii saxiixdeen balse lacag ay siin doona haddii aan daawaday wax yar dib markaasi maskaxdaada aan u milciyo gabadhan ayaa ka qayb galaysay feerka iyadoona aysan markaasi haysanin garab istaagii ay u baahneed oo ay dalalka kale ay haysteen iyadoona wax walba isqarash gareenaysay lacag walba wax walba oo feerkeeda ku baxayana iyada ayay markaasi iska bixinaysay iyadoona ugu dambeyn guulo waaweyn ay maanta gaartay iyadoona dad badan ay maanta ay markaasi garbaheeda markaasi soo buuxinayeen gabadhan ayaana markaasi ka mid ahayd gabdhaha markaasi u bareeray inay ka qayb galaan tartanka feerka dhanka kalena haddii aan fiiriyana ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dultagay meedadkii ugu badnaa ee kooxda Al-Shabaab ee markaasi lagu aasay faahfaahin dheeraada ayaa waxa markaasi laga helayaa howlgal oo ay markaasi culus oo ay maanta ay ciidamada xoogga dalka ay sameeyeen ay markaasi ayna ku sameeyeen duleedka fog ee degmada markaasi Ceeldheer oo gobolka markaasi Galgaduud inkastoo dhawaanahan markii halkaasi dagaal uu ka qarxay ciidamada dawladda Soomaaliya ayaana guul weyn ka gaareen dhanka Al-Shabaab kadib markii ay dhagta dhiiga u dareen dagaalyahano ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo weerar ay ku soo qaadeen magaaladaasi iyadoona markaasi la arkayay meedad fara badan oo ciidamada dawladda oo aysan hore u soo bandhigi jirin ay soo bandhigeen balse waxa ay sheegeen in meedadku ay halkaasi ay ka badnaayeen
ku dhawaad waxa ay dowladda Soomaaliya ay sheegatay in 70 xubnood oo kooxda Al-Shabaab lagu dilay iyadoona markaasi ay sheegeen ku dhawaad 20 iyo maartay wax ka badan ay soo bandhigeen midada balse waxa ay sheegeen in ay Al-Shabaab ay uga dultageen goob ay barkado iyo waliba sidoo kale askartoodii ku dhaawacantay halkaasi ay ku daweynayeen iyagoona markaasi baxsad ay yihiin ay gudaha markaasi duurka ay u sii galeen howlgalkan ciidamada ayaa waxa ay markaasi ay ku gaareen deegaano ay markaasi iyo tuulooyin markaasi fogfog oo dhaawacyada markaasi kooxda Al-Shabaab laga soo gaaray dagaalka Ceeldheer ka dhacay ayaana markaasi la sheegay in ay halkaasi ay ula carareen balse dowladda Soomaaliya ayaana sheegatay in ay markaasi meedad kale oo hor leh iyo waliba sidoo kale dhaawacyada ay halkaasi ay la tageen balse waxa ay sheegeen inay arkeen goob lagu aasay askar tiro badan oo kooxda Al-Shabaab ilaa iyo 30 ay gaarayaan General Ahmed Maxamed Faarax oo markaasi kamid ahaa markaasi saraakiisha markaasi kuwa waa markaasi saraakiisha kuwada commandoska gorgor ayaan howlgalkan sameeyeen ayaa sheegay in ay markaasi dultageen meedadka kooxda Al-Shabaab ee ku aasan aaga ay markaasi gaareen iyagoona markaasi ay ku aasteen iyo waliba sidoo kale dhaawacyo kale oo tiro badanna ay markaasi la tageen sidoo kalena waxa uu fariin u diray bulshada deegaanka isagoona markaasi uga baaqay in ay qaataan doorkooda ku aadan in ay soo sheegaan Al-Shabaabka ay ku arkaan goobaha iyagu markaasi ay joogaan ujeedka howlgalkan ayaana ahaa mid aan horey loo sii shaacinin iyadoona markaasi kooxda Al-Shabaab ee dagaalamayaashooda ay goobta ay ku sugnaayeen ee loogu dul tagay inkastoo xogtii marka dambe ay heleen iyagoona gebi ahaanba ay isaga dhaqaaqeen goobtii ay ku sugnaayeen Al-Shabaab ayaana horey sidan oo kale ciidamada dawladda ee dagaal ula galeen iyagoona halkaasi guuldarooyin qaraar lagu dhadhansiiyay balse dagaalkan ayaa noqonaya mid ay kooxda Al-Shabaab ay ku doonayso sidii ay gebi ahaanba ay markaa usoo gabagabeyn lahayd dagaalka markaasi lagula jiro kooxda Al-Shabaab ugu dambeyntiina gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaana markaasi uu qaaday tilaabo xalay dad badan si weyn ay ugu falanqeeyeen sawiraan iyo waliba sidoo kale hadalheen ayay ka dhalatay gudoomiyaha gobolka Banaadir arintii uu xalay u sameeyay gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Xasan Maxamed Xuseen Mungab ayaana xalay markaasi sameeyay kormeer shaqo isagoona markaasi cagta soo mariyay cirifka caasimada halkaasi oo ay markaasi ay ku tageen booqasho oo ay ku doonayaan kormeerkan oo markaasi loogu gur lahaa amniga caasimada iyo waliba sidoo kale isbedelka boqolkii maalmood oo markaasi gobolka Banaadir uu maamulayay gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Mungab tani waxay markaasi ay noqotay mid ay si weyn dadku ay ugu maadeystaan kadib markii askar tiro badan oo markaasi goob isgoos ay taagan yihiin iyadoona gudoomiyuhu dhex taagan yahay iyadoona markaasi ay sheegeen maadaama warbaahintu ay faafisay qoraal looga dhigay ciwaano looga dhigay amniga magaalada Muqdisho iyo Mungab oo markaasi goobo badan tagay balse laakiin waxa ay noqotay in askar markaasi goob ay taagneed sawir laga soo qaado kadibna baraha bulshada lagu faafiyo halka amniga uu yaalo iyo waliba sidoo kale waxa ay sheegteen iyo wax markaasi halkaasi taalo Mungab ayaa mucaarad badan yeeshay isagoo 100 maalin ku sugan gudaha markaasi xilka madaxtinimada ee gobolka Banaadir waana gudoomiyihii markaasi labaad ee sidaasi sameeya ama markaasi soo noqda gudoomiyaha ama duqa magaalada Muqdisho mudane Mungab oo markaasi hadda majraa u haya gobolka Banaadir isagoona markaasi dhismooyin markaasi wadada soo burbursaneed iyo sidoo kale wadadan xamarweyne aade ee buundooyinka ayuu si wanaagsan markan u dayacay isagoona markaasi wax ku ool badan uu qabtay soo laabashadiisa daawada haddii aad halkan la soo gaartay waa Fafi TV waxaan ka codsanaynaa YouTube ka subscribe garay muuqaalka la garay siin share garay saaxiibada wadaag oo ku meesantiin daawashada muuqaalkan meesanidin